السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواده هوي تكنولوجيا كمبيوترka عشركان عشركeen afraad ee barashada kombiyuutarka. maanta waxaan baranaynaa halka laga maamulo kombiyuutarka, macnaha settingka kaasoo ah xadurtii saldhigga kombiyuutarka. waxba idin daalna casharkeen ayaan guda galaynaa. setting system waa meesha laga bedelo xadurtii lightka iftiinka, sida xadurtii inaad ku badiso iftiinka aad yareyso, xadurtii inaad ku furto kalarada ay qaabilsan. bluetooth waa meesha aad ugu xiran lahayd telefoonkaada. samiicad meesha bluetooth aad ugu fahansantiin Soomaali device-kaada. network waa meesha aad ugu xiran lahayd internetka, tusaale wifi inaad ku xirato iyo xadurtii VPN-kii, mobile hotspot-kii iyo airplane meesha diyaaradda laga saaro iyo kulli ayaa ku kaysan. meesha saddexaad waa personalize oo ah meesha sawirada laga bedelo, aad waa garanaysiin. meeshan waa abiski oo kugu jira kombiyuutarkaada. meesha saddexaad oo ah meesha laga bedelo passwordkii aan hore usoo baranay. meesha waa meesha laga saxdo taariikhda iyo irrigation wadanka iyo xadurtii luqadaha. meesha laga saxdo waa meeshan. meesha kalena waa gamingka nagawad. meeshan waa accessibility, meesha oo farta laga weyneeyo laga yaro, farta laga maamulo. tusaale waa ka display waa watan hore soo aragnay. meeshan xadurtii waxa muuskan waa laga maamulaa text color filtering iyo instruction demisk iyo kulli waa intana privacy security waa amniga kombiyuutarkaada iyo meesha oo laga maamulo. tusaale Windows security sida browserada, virusyada, account protection kuwaas waaye. meesha ugu dambeysa waa Windows updates oo meeshii aad kombiyuutarka ka restore gareeyd update aga diran lahayd. casharkeena maanta intaas ayuu ku saabsan yahay. waxaan inoo balna casharkeena